addoon waa u nicmo badan yahay isagu sulaymaan waana awaab baa la yidhi mid soo noqosho badan cagsigiisa waxaa ilaahay tilmaamayaa nebi kale oo imtixaan xanuun iyo dhib lagu imtixaamay oo qur-aanku aanu wax kaleba ka sheegin dhibtii soo gaadhay mooyaane nebiyullaahi ayuub meel kastoo qur-aanka ayuub uu ku qoran yahay inta badan waxaa laga warramayaa uun imtixaankii ku dhacay axaadiista sunnaduna waxay tilmaamaysaa 18 sano inuu bukay oo imtixaankaasi ku jiray isna wuu sabray wixii laga rabay qolada hore shaakiriin bay ahaayeen waqaliilun min cibaadiya shukuur baa ilaahay qisadooda ku tilmaamaya dabeetana nicma alcabdu innahu awaab baa lagu tilmaamay isna wuu sabray inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu innahu awaab baa isna ilaahay yidhi waxaanu hellay isagoo mid sabraya ah nicma alcabdu innahu awaab idan labada imtixaankaa doonto gal kii kastoo kaa soo horbaxa waxaa lagaa rabaa inaad xaqiijiso derajada ah nicma alcabdu innahu awaab haddii faqri iyo gaajo iyo amni darro iyo dhibi ku soo marto inaad sabirtaa loo baahan yahay ilaad ka gaadhisa nicma alcabdu innahu awaab haddii magac iyo maamuus iyo xoolo iyo sulto iyo waxaan ku soo maranayana imtixaan kale un inaad shukri noqdo abaalkeed marisaa baa lagaa rabaa ilaa aad ka gaadhisa mansilada ah nicma alcabdu innahu awaab idan waxaan leenahay dunidu aynu ku nool lahay waa imtixaan gebigeedba nabluukum bishari waalkhayr bay taagantay ambiyaduna waa dadka ugu badan ee imtixaanka la geliyey ee nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay ambiyada imtixaanaadka o dhammi soo mareen isagoo laga xoog badan yahay oo saxaabadiisa hortiisa lagu tumayo lagu garaacayo wuu soo maray isagoo xoog badan oo sulta iyo power haysto dowladdiisu xoog badantay oo dadku afwaajan diinta u soo gelaya wuu soo maray waxay idhahdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxamedi imtixaanaadka dhammaantood wuu soo maray ay imtixaan aad sheegata bay leeyihin haddaad siirada nebi moxamed akhrido waad ku arkaysaa wax u dhigma ay imtixaan bini aadam uu sheegtana qur-aanku taariikhda uu ka warramaya ambiyada waad ku dhex arkaysaa maalan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam fitnatu lqariib buu soo maray dadkii u dhowaayoo lagu imtixaamay isagoo rasuulah oo ilaahay soo diray oo dadka khayr u sheegaya ayaa dadka kuwii ugu dhowaa beeniyeen abujahl iyo abulahab iyo quraysh iyo tolkii ugu dhowaa adigoo wanaag sheegayo lagu leeyahy waa kadaab waa beenaale ama waa saaxir ama waa caynkan lagugu tilmaamayo ilaa xad intay daba galaan adeerkii uu daba socdo oo markuu is idhaahdo cid la hadal uu idhaahdo anaa wiilkan adeerkiiyo waxba ma oga waa sixirroole iska dhaafa haddii adeerkaa ku daba galo bal adigu qiyaas adeerkaayoo aabbahaa la dhashay oo kaa weyn hadduu ku daba socdo oo midhkaad sheegtaba cagsigeeda uu sheegayo uu leeyahy ka yar nagaa dhalayoo waa adeer baanu ahay waxna kama jiraan waxa uu sheegayo yacni cidhidhigaad dareemi lahayd intuu leekaanaya kii kuugu dhowaa markuu xadkaa iska kaa taago ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo dejiyey qur-aanka markaa laynoogu tilmaamayaa imtixaanaadkaasi wax lagaga gudbo oo ay ka mid tahay inuu qalbiga bini aadamku cidhidhigaasi aanu dareemin cidhidhi kastoo aad dareemto wax lagaga caafimaado alaslu qur-aanku wuxuu tilmaamayaa alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub ilaahay xuskiisa in qalbigu ku dego nusuus badan oo qur-aan iyo xadiidiba way soo arooreen markaa masaa'il badan oo noocaasiya ka warramaya bitafsiil salliga nebiga ka mida kuwa laakiin waxaan u dan leenahay inaan maanta ka hadallo التصبيح فقط تصبيح erayga macnihiisu wax weeyaan subxaan allah markaad leedahay ilaahay baad xumo ka hufaysaabay odhan jireen culamada soomaaliyeed ama si kale haddaynu u tilmaamno waa tanziihu rabbi can الnaqaa'is waa ilaahay subxaana wa tacaala aad ka nasahayso ka fogaynayso ceeb oo dhan ilaahay uma cuntanta baad leedahay waxa naqsiya oo dhamme ilaahay uma cuntamo ilaahay kamaalaadkuunbaa u cuntama alxamdu lilaahi baa markaa ah ilaahay oad kamaalka u sugayso ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy markaa walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun
markii ilaahay ka soo warramay istihzaa ay qur-aanka ku sameeyeen ilaahay kitaabkiisa ku sameeyeen rabbi gaalnimaday ka gaaloobeen waxay xumo sheegayaan ilaahay abuurto waxa ay ka sheegayaan nebigiisii ay waxaa ka sheegayaan dadka waxaan ka sheegayo qariibkii iyo dadkii ugu dhowaaya ayaa ilaahay wuxuu leeyay fii suurati alxujaraat walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk waa ognay baa ilaahay yidhi in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay kugula hadlayaan iyo waxay alle ka sheegayaan ee adiga waxa la rabo fastac bima tu'mar waacrid cala almushrikiina inaa kafaynaaka almustahzi'iin aladiina ilaahay wuxuu soo sifeeyey waxa ay samaynayaan dabeetana waxaa la yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk waa ognay in laabtaadu cidhiidhiyoomayso ee fasabbix bixamdi rabbik wakun min asaajidiin fasabbix tasbiixso ilaahay xumo ka huf multabisan bixamdi rabbik adigoo ku maraya amase ku dheehaya alle ammaantiisa wakun min asaajidiin inta sujuudaysa ilaahay fooda dhulka u dhigaysana ka mid noqo culammadu waxay yidhaahdaan maxaa diiqu sadri inta laga warramay loo yidhi fasabbix waxay yidhahdaan huwa tiryaaq waa dawaaun yustashfaa bihi waxa lagu caafimaadaya waxa weye markii xanuunka loo sheegayo dhibta haysata ayaa ilaahay yidhi sidaa yeel sida nebiga la yidhi yeel bay culammadu leeyihiin waa sida laabtu ku caafimaado walidaalika baa qur-aanka meelo badan waxaa ku soo arooray qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun ama falacallaka taarikun bacdu maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanz aw jaءa macahu malak falacallaka baakhicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yuuminuu bihada alxadiidi asafa aayaad badan baa soo arooray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dadaalka uu diinta u hayay iyo dhibta lagala hor yimi iyo cidhiidhiga uu dareemayo wada tilmaamaya idan waxay culammadu leeyihin cidhiidhigaa waxa lagaga baxaa laabta qofku ay saafi noqotaa qalbigiisa ay طmi'naanku galaa raaxatu اlbaali wanafsi uu ku helaa waa masaa'ilkan ilaahay u tilmaamay subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ama tasbiix ilaahay oo aad u tasbiixsato iyo adigoo inta sujuudsan ama inta tukanaysa ku biira qur-aanka markaa meel kasta ama meelaha ugu badan ee nebiga la farayo in dhibaatooyinkaasi la kulmayaan waxa la farayay ama salaad iyo tasbiix nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiidka saxaabadu ay warinayaan uu ku tilmaamayo idaa xasabahu amrun baadara ila asalaa haddii uu arrin dhib geliyo haddii warwar uu ku dhaco hadduu wax mashaakila la kulmo baadara ila asalaa baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadduu u degdegi jiray sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qur-aan tiro badan oo sabir iyo tasbiix sheegaya fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha وmin alleyli fasabbixuu adbaara الsujuud fii suurati qaaf fii suurati haafir ilahay wuxuu leeyay fasbir ina wacd allahi xaqu wاstagfir lidanbik wasabbix bixamdi rabbika biاlcashiyi wاlibkaar fii suurati tuur ilahay wuxuu leeyay wasbir lixukmi rabbik fainaka biacyunina wasabbix bixamdi rabbika xiina taquumu wamin alleyli fasabbixuu waidbaara الsujuud waidbaara الnujuum fii suurati اlinsaan fasbir lixukmi rabbik ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صور كاينو سو آخرنا يوردن الله سبحانه وتعالى وحو النبي سي محمد عليه الصلاة والسلام وطل ماميا وحا وكلا كل ما يددكاسي إن يهين وح عديدي قلينيا waxay ku hadlayaan wax xun inuu yahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam rabbi wax ka sheegiisa iyo diinta wax ka sheegeeda inuu cidhiidhi dareemi doono dabeetana waxaa loo tilmaamay sabir tasbiixsana ama tuko suwar kalena iyadoo salaadda iyo sabirku isku xidhan yihin wastaciinuu bisabri wasalaa
ilaahay uu ku tilmaamayo waa soo aroortay waxaa kaloo soo arooray nebiyullaahi yuunus dhannuun oo tolkii markuu dhib kala kulmay ka tegay isagoo cadhaysan oo moodayeen inay ilaahay u qabanaysay mufasiriintu tilmaamaan oo dabeetana bad tegey doon fuulay si kastaba ha noqotee isaga sahmiguu ku dhacay doonta ha la khafiifiya la yidhi nebiyullaahi yuunus doonta laga tuuray dabeetana uu cunay ama iltiqaa buu libqiyey nimiri xuut weyl ayaa libqiyey alla wuxuu tilmaamayaa meeshaa cidhiidhiga ah markuu galay waa cidhiidhi halkii u dambaysay baddu marka hore ilengeed la cuskadaanatay haddaad badweynta ku hafato marka horeanad nolosha laga quustaa haddana haddaad bahal calooshii sii gasho hadaa walba bad ku jiray haddana bahal calooshii aad sii gasho waxaynu odhan karnaa waa meeshii u dambaysay ee nolol lagaga quusan lahaa halkaa markuu galay baa ilaahay yidhi wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi ulumaat mugdiyadaasuu ka dhex dhawaaqay baa ilaahay yidhi muxuu ku dhawaaqaya waxay culammadu yidhahdaan habeen madow oo bad madow oo bahal calooshii uu ku jiro ayuu dhawaaqay oo maxay leeyahay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alظaalimiin wuxuu leeyahy laa ilaaha ilaa anta ilaw keliga ayaa xaq lagu caabudaa subxaanak erayga nuu soconayna waa ka subxaanak rabbow xuma ka hufnaanta ceeb adigaan lahayn inii kuntu min alظaalimiin waxa uu qiranayaa qofka muslimkana ay tahay inuu qirto wax kastoo dhiboo ku soo gaadhay waa bisababi dunuubi الnaas waa dadku wuxuu geystay unbay ka ratibmeen wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ilaahay addoomihiisa ma dulmiyo bale dembigaa dhibtan lagaaga maydhaya dunuubtaad aakhiro la tegi lahayd adigoo xambaarsan ayaa dunida lagaaga sii jafjafaya saa daraaddeed bu wuxuu nebiyullaahi yuunus leeyahay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alظaalimiin mashkilad baan ku jiraa laakiin mashkiladda anaa dulmiga sameeyuno ilaahu adigu wax ma dulmidid buu leeyahy rabbow dulmigu adiga xaggaaga kama imanin ee dhib aan sameeyey unbaa waxa kane iigu dhacay ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu qur-aanka ku tilmaamaya in la badbaadiyey maxaa lagu badbaadiyey rabbi baa qur-aanka fii suurati saad inoogu sheegoo leh falowlaa annahu kana min almusabixiin lalabita fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun falowlaa annahu kana min almusabixiin baa ilahay yidhi haddii aanu ka mid ahaan lahayn baa ilaahay yidhi kuwa tasbiixsada intaanu cidhiidhiga gelin iyo markuu cidhiidhiga galayba wuxuu ahaa maxay inta tasbiixsata ee tukata ee subxaan allahda badisa haddii aanu kuwa marka hore ka mid ahayn baa ilaahay leeyay lalabita fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun ilaa yowm اlbaciga xagguu ku jiri lahaa yacni ma heleen badbaado muxuu ku badbaaday inuu musabix ahaa soomaalidu inta badan ama bini aadamku inta badan markay kadantay alla taqaanaa bay soomaalidu tidhaahdaa had iyo goor bini aadamka markaa dhibtu qabsato ayuu rabbi xasuustaa yaa rabbi markaasuu ku yidhaahdaa markuuse badhaadhaha ku jiro sidii rahyi ay sheegayeen buu noqdaa rahay yidhahdeen soomaalidu markuu biyaha galana ma xasuusto waxba marka kalena waa xasuustaa qofka bini aadamkii inta badan labada imtixaan bay yidhahdaan imtixaanka dhibta iyo imtixaanka nicmada adag bay yidhaahdeen waayo imtixaanka dhibta waxay u badantahay bay leedahay rabbi u noqotid inaad baryada badisid inaad cibaadada badisid inaad ilaahay imtixaanka barwaaqada se lama xasuusto xaggee la tegaya ayaa maxaynu cunaynaa iyo xaggee loo dhoofaya halkii laga boodaya ayaa lagu jiraa idan barwaaqada inta badan lama xasuusto haddaba haddaad kuwii barwaaqada markay ku jiraan rabbi xasuusan jiray tahay kuwii barwaaqada markay ku jiraan tasbiixsan jiray haddaad tahay markay dhibtu ku qabsato ilaahay waa kaa badbaadinaya saa daraaddeed baa nebi yuunus ilaahay wuxuu leeyay falowlaa annahu kaana min almusabixiin haddii la leeyahay inaanu ka mid ahayn kuwa tasbiixsada yacni kuwaasuu ka mid yahaye haddii taasi aanay jirin lalabita fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun idan waxaan leenahay cidhiidhiga markaad gasho
cidhiidhi adduun ama mid nafsiya ha ahaado sidii kii nebi moxamed ku dhacay calayhi salaatu wasalaam ee la yidhi yadiiqu sadruk lagu tilmaamayey ama mid jasadiyaba ha ahaado practical ah inaad badi ku liqdo aad meel daran ka dhacdo ha noqoto ayi mashkila uu qofku galo waxyaabaha laabta cidhiidhiga ka saara ee qofka aanu buufiska dareemin aadanuhu markuu cidhiidhigu stressku markuu ku bato waabuu maskax gadoomaa dad badan baa cidhiidhiga intay u adkaysan kari waayaan maxay waasha ama khafiifa ama isdhaafa stressku markuu ka bato ilaahay wuxuu leeyahay haddaad tasbiixda badiso yaطma'inu qalbuk mashkiladana waad ka baxaysaa bal rida nafs cibaadaadka ugu sarreeya waxaa ka mid ah alqanaaca warida nafs inuu qofku wax kasta oo uu la kulmo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu raalli ka noqdo nolosha aanu cidhiidhi ka dareemin saa daraaddeed baa labadan ilaahay qur-aanka aayad kaloo isku xidhaya fii suurati طaaha ilaahay wuxuu leeyahy faصbir calىa maa yaquuluun waxay ku hadlayaan ku sabir baa ilaahay yidhi وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار وايو لعلك ترضى با إلهي وحال يدي النبي عليه الصلاة والسلام صبر كدبنا وحال يدي تصبيح أدقوا إلهي ما هد نقيس كل هي